waa maalin ka duwan maalmaha kale. Waa xilli subax, waa maalinta xornimada. Waxa uu iibinayaa calan si ay u dabaaldegaan maalintoodii xornimada. Halkudhigiisu waa iga iibsada calan, iga iibsada calan. Waxa uu sabab u noqday kumanaan kun farxadooda. Qaybna wuxuu ka qaatay maalintani ee xornimada. Weli wuxuu wareejinayaa calan si loogu iibsado. Kadib shaqadii ay u soo idlaatay, loo fiirso. Naxariis darradu waa dareenka ugu liita, waana xumaan midda ugu daran. Wuxuu ku fikirayaa ubadka yar, lacagta uu soo shaqaystay, sida fudud oo ugu qaadan lahay. Waa xilli habeen, uu u hooyanayaa gurigii. Waa mugdi. Wuxuu ugu dhakaday ama ugu gambaday meel si uu u qabsado, si qartiina uu u maqlin. Ninka askarigii ee halkaa fadhiyay wuu kaxaystay, wuxuuna geystay laabad ka mid ah halka uu ku qabtay si uu u qaato ama uu u sheegto xoog. Lacagtii uu soo shaqaystay, juhdigii iyo halgankii uu ku soo shaqaystay. Kadib markuu ka qaatayna, halka ayuu ugu cararay. Ma haysto wax aan wax ku cuno, aadna waan u gaajaysanahay. Mana jirto cid i saacidayso. Waan arki karaa, balse awood uma leeyahay inaan cuno. Ma aanan quusanin. Waxaan soo qaaday kista yar ee calan iyo harsaneed maalintii xornimada maalintii ku xigtay. Balse cid u baahan oo iga iibsanaysa ma jirto, waayo xilligii dabaaldegii waa laga soo gudbay. Cid kastaana maalintaas un ayaa muhiim u ahaa. Fadlan haddii aad aragto dadka danyarta ah ama shaqaysanayo, fadlan ka iibso waxaad awoodo, ama waa ixtiraam oo u muuji bini'aadanimo. Waan ooyay sababtoo ah waxaan xamili waayay xanuunka gaajada iyo haysa aawadii.